kusoo dhawaada saaxiibayaal stuudiyaheena cusub ee Sam Talks. in muddo aaban waday in stuudiyahan sidan inaan u qaabeeyo stuudiyahan oo doonay saaxiibayaal inaan barnaamijyo aad iyo aad u badan waxyaabo badan oo idinka qaarad kamid ay weydiiseen waxyaabo badan oo anigu aan jeclaa in aan idin soo gudbiyo in aan positionkii aan idinku soo gudbin lahaa aan muddo badan ka fikirayay ugu dambeyn waxaan Ilaahay ugu mahadcelinayaa in stuudiyahan uu soo rageliyay inaan sameeyo stuudiyahaas oo insha Allah idinkula wadaagi doono barnaamijyo aad iyo aad u kala duwan waxaan ka mid ah barnaamijyada aan idinla wadaagi doono haddii la yiraahdo barnaamijkii inta muddada aan waday ee idinkuna ay taqaaneen Sam Talks lambar 2 yaraanteedii waxaan ahaa qof qalqaalnimadayda oo naxiisay in walaa imkan saakin noqday tastaxana waxa weeye oo iska dhib badnayd balad muxuu noqonayaa wala nacsu baasurada naga duu dhuftana day ugu dhufay bisa shahaadad qofsan leed shahaada la ilaaha illa allah shahaada ma isla ku dhufayaaba barnaamijkaas oo ka koobnaa ama idinku aad ka aragteen su'aalo diyaarsan oo 100 su'aalood ah oo dad team ah oo marka qaran ku martay qaaday sidoo kalena dad gooniye intaan u yeedho aan barnaamijkaas su'aalahaas weydiin jiray sidoo kale barnaamijkaas wuxuu yeelan doonaa qaybo kala duwan waxaan idin horgeeni doonaa dad badan oo insha Allah aad wax ka faa'iidi doontaan iyagoo aan barnaamijkaas ku koobnaan doonin su'aalaha idinku barnaamijka ka aragteen ee su'aalaha la isweydiiyo ee anigu aan diyaariyay 100 su'aalood sidoo kale waxaa jira barnaamij la yiraahdo Sam Debates waxay faraad ka qaadaysaa waxaan arkaa hadii jeclaale dadku oranaya niyo markaan yaraaban wax jeclaa inanta barigaan yaraa jacaylkii yaraantii ba macaan waayo waxaan ma kala ogid markaad ilmo yar tahay waxba ma garanaysid qofka bad adduunkaagii oo dhan moodisay noloshaadii laakiin markaad weynaatid aad noqotid qof majuur oo wax kala garanaya waxaad aaminaysaa inay danahaaga kale kaaga muhiimsan yihiin qofkan banaankaad ka barateen shalaytooda marka mar walba waxa ka muhiimsan qofku markaan waxba garanayn oo mooday qofkan wax walba inuu yahay noloshiisii oo dhan inay qofkan tahay aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waxaan rajaynayaa inuu noqdo barnaamij wax badan ka faa'iideyno waxaan rajaynayaa inuu noqdo barnaamij Soomaali Maxamed oo dhan gaadha oo anfaca barnaamijkaas waxaan ugu talagalay in insha Allah idinkula soo wadaago doodahaas oo aan dhex mari doona dhalinyarada iyo haldoorka Soomaaliyeed kuwaas oo iyaga barnaamijkaas dhexdiisa ay ku doodi doonaan waxyaabo ku saleysan wadciga dadka Soomaalida waxyaabo ku saleysan inaga nolosheena haddii la yiraahdo sidoo kale saaxiibayaal waxa jira barnaamij sagan la yiraahdo Sam Stories oo ugu talagalay inaan idinkula soo wadaago sheekooyinka ama istoriyada dadka Soomaalida ay leeyihiin haday noqoto kuwa dadka noloshooda khaaska ayaga khusaysa kuwa dadkii waaweyn ee imika maaragtay nolosha in badan soo waday heer ka gaadhay waxyaabo badan oo inagu ayaan u soo joogin insha Allah barnaamijkayga ku soo marti qaado magacaygu waa Gulay Cabdi Caabi waxaan nahay jilaa Soomaaliyeed horta waxaan ku jeclaaday film sameynta ama actornimada waxaan ku jeclaaday yaraantaydii dugsigii primarygii markaan dhiganayay ayaa badanaa waxaan ahaa ardayda marka daabuurka kala ama safka laga baxo maalmaha arbacada oo kale adigu majaajilay yarka ka dhigi jiray ardaydeena ka qosnin jiray sidaa waxa ayaa waxa dhici jirtay badanaa inay asxaabtayda amba classmate-kayga oo kale inay yiraahdaan iyagu waad ku fiican tahay inaad wax sameeyso ama wax tisho marka sida aawadeed ayaan ku soo galayba saaxadan film sameynta sidoo kale waxa jirta waqti aan iskuulka dhiganayay in aan waxbarashadii sidii ardayda igu dhiiri gelinaysay waxa tahay jilaa inaan waxbarashada xitaa aan u jarayba maadaama aan fahamkii ugu batay oo aan nafteedii ka aaminay inaan ahay qof wax sameyn kara waxa dhici jirtay inaan waxbarashada xitaa iska joogo iyadoo aan guriga ka soo baxo oo aan iskuulka imaado ayaan dhex iska barsan jiray mararka qaar ilaa markii dambe iskuulka lagu kari waayo iskuulka aan ka baxo mid kale la igu daro san doo marbarsiyoodan u oran jiray maxaa iskuulka xun iyo iskuulkaasna ana ay danteedu ahayd inaan iskuulkoodka ka baxo aan ku biiro meelaha wax lagu matalayo amba wax lagu jalayo sidoo kale waxa jira waxa idinku aad u xiiseysaan oo marar badan ka sheekeyn jiray haday TikTok noqoto iyo haday mataqaana YouTube noqoto marar badan aan mawduuciyad ka sameyn kaasoo jacaylka marka insha Allah barnaamijkan goonida ay isagana waxaan kula wadaagi doonaa saaxiibayaal sheekooyin aad iyo aad u xiiso badan oo ku saabsan jacaylkaas oo
sheekooyin dad ku dhacay qaar anigu aan idin soo gudbin doono oo mataqaanaa dad aniga ii soo dhiibeen iyo insha Allah qaar iyagu dadku si gooniya iyaguna idinku faafahin doona kale waxa jira saaxiibeel barnaamij kale oo isagana aan ugu magac daray Cafe with Sam barnaamijkaas oo barnaamij aad iyo aad u xiiso badan aniga aan maskaxdayda ku dhashay waxaan doonayaa dadka aniga la midka ah ee da'deyda jira iyo dadkiiga waaweynaaba waxa jiray waqtiyo badan oo iyaga noloshoodii yaraantii ay soo mareen waxa jira dhacdooyin badan oo iyaga aad iyo aad u qosol badan oo haday waalidiintood noqoto hadii iskuulkii noqoto haday noqoto waxbarashadii yani intii ay yaryaraayeen da'dii yaraantay ku jireen sheekooyin aad iyo aad u xiiso badan oo dadka ku soo dhacay marka insha Allah waxaan rajayn doonaa inaan dad idinku soo marti qaado aniga iyo asxaabteeda kuwa badan ka wada sheekaysan doono haddii la yiraahdo inaan barnaamijkaasna insha Allah uu noqdo barnaamij kale oo isaguna xiiso badan oo laga sheekeeyo waxyaabihii baastiga ahaa inagu aynu soo marnay waxaan rajaynaa in waxyaabo xiiso badan ka soo bixi doona haddii la yiraahdo sidoo kale waxaad daawataan barnaamijyo badan oo challenges oo YouTube-da la soo galiyo challenge-daas oo la isku challenge gareynayo waxyaabo faniya waxyaabo qosla waxyaabo kala duwan waxa kale jira barnaamij kale challenges oo aan sameeyay laakiin barnaamijkaas badan wuxuu u badnaan doonaa su'aalahaas oo ku saabsan su'aalo iyaga wax laga faa'iidayo kuna saleysan wadcigeena iyo dadkeena Soomaalida ah caruurta iyo dadka yaryar da'da yaryar ee soo koriyana ay noqon doonaan iyagoo challenge-daas ku qoslaya ama ku daawan doona hadana ay noqon doonaan barnaamijyo iyaguna ay wax ka faa'iidaan haddii la yiraahdo sidoo kale waxa jira dhalinyaro aad iyo aad u badan oo aniga aan baraha bulshada saaxiib ku nahay kuwaas oo marar badan mataqaanaa haday comments ka noqoto iyo haday si individual ay soo weydiinayaan noqoto in weydiiya xirfadda filminka iyo qaabkan u bartay iyo mataqaanaa inaan course iyagu sameeyo inaan u soo gudbiyo mataqaanaa qaabka u baran karayaan marka insha Allah studio-gan wuxuu noqon doonaa sidoo kale meel dhalinyaradaas aan ugu soo gudbin doono haddii la yiraahdo muuqaalo aad iyo aad badan oo dhanka YouTube-ka iyo dhanka TikTok-ta ah oo ninkula wadaagi doono haddii la yiraahdo barnaamijyo ama programyo ku saabsan filminka haday noqoto qalabyada la isticmaalo haday software-da la isticmaalo qof cusub oo da'yar sidoo u baran karayo xirfadda filminka waliba dadka xiiseeya iyo dadka jecel inay xirfaddaasi bartaan sidoo kale saaxiibeel studio-hani ma noqonayo studio aan leeyahay oo mataqaanaa waxaan isku soo gudbin doonaa mid kasta oo idinkeed ka mid ah ama barahayga bulshada ku xidhan wuxuu noqon doonaa meel ugu iman karo meel aan ku kulmi karno meel aan isku arki karno meel mid kasta oo idinkeed ka mid ah oo jecel in uu wax duubo social media inay wax galiyaan doonaya laakiin aan haysan position-kiyaga ku duwan lahaa halkan waxa ku diyaarsan teamkayga insha Allah waxa la isku diyaarinayaa any video oo social media ah oo aad doonaysaan in mataqaanaa aad sameysaan kala teamkayga idin sameyn doonaan halkan waxa noqon doontaa meel qof kasta oo mataqaanaa in uu door bidayay mataqaanaa in aniga ma wax weydiiyo ama wax iga korodhsado marka saaxiibeel intaas ku soo gabagabeynaya halkan waxa noqon doontaa meel aan wax badan insha Allah ku sameeyno oo maskaxdeedana ku jiray idinka maskaxdeedana ku jiray oo aad jeclaan lahaydeen qof idin sameeya aniguna intii taagayga insha Allah waan sameyn doonaa muuqaalkan subscribe like share kana mid noqo asxaabta ku xunaa mar walba Mawlid Sam